marka waxa la doonayaa wadooyina barta la mariyo aadii soo dhaweeyo urta dusheeda wadadan ayaa ah mid kamid ah wadooyinka ugu qurux badan sidoo kale xaafadan Aragsan ayaa kamid ah xaafadaha ugu qurux badan sidoo kale goobtan idin muuqata ayaa kamid ah goobaha ugu fiyuga qurux badan leh magaalada Hargeysa okay wadadan baan ka bilaabi doonaa wax kasto horumar ah ama qurux ah ama wanaag ah dadka dhan baa jecel wadadan ayaa kamid ah wadooyinka haatan ama maalmahan cusub magaalada Hargeysa inagoo markasta isku daynaa inaan soo gudbino waxyaabaha ama horumarka ku saabsan magaalada Hargeysa okay wadadan baa wada cusub taasoo ku taala buurta kala jeexan una leexanaysa sorry xaafada Aragsan village ee ku taala xaafada buurta kala jeexan oo jigjigeer maxaan lahnaa xaafadu waa halkan sidoo kale wadadan waxay u wareegaysaa dhinaca shishe ee xaafada marka dhinaca shishe idin soo horeysin doona marka waxaan tusi doonaa qaabka biyo mareenka iyo waxyaabahaas lagu sameeyay iyo quruxda xaafadan marka halkan wada kala martaa midigteena iminkaan marayno iyadoo saa u soo wareegaysaa ما شاء الله تبارك الله اسمهن Aragsan village kasoo horjeedka waxa laga dhisay dhismo aad iyo aad u qurux badan garan maayo inuu dheer yahay inuu guri yahay laakiin beautiful wadada way soconaysaa halkan xaafadan aad bay u balaaran tahay marka wadadan waxay kaga wareegaysaa dhanka koonfurta dhanka waqooyiga iyo galbeedka oo xaafada ay qurux sameynaysaa iyo bartana waa barta idin sheegay waa buur weeyaan halka laba buurood ay soo eegaya laba xaafadood baa ka kala dhisan ama laba xaafadood weeyaan xaafadaha guryaha soo eegaya iyo xaafadan markaan marayno ayaa labada buurood isku muuqdaan taasoo ka dhigaysa meel aad iyo aad qurux badan guryahan waa ku cusubiyeen meesha waa guryo isku eeg xaafada Aragsan Rugsan Naxsan ay ka dameysa weli imika dhanka waxaan ka maraynaa galbeedka inagoo isku day doona in aan la soo wareegno bartan aad iyo aad bay u fiican qurux badan tahay already waan ognahay Hargeysa waxay ku caan tahay buurahaas oo isoo eegaya meelaha qaar baa gaaban meelaha qaar baa ab meelaha qaar baa hoos ah meelaha qaar baa isku siman meelaha qaar baa kala qalqalooca already waa inka halkaas soo jeedkaas okay xagan hoose laagba marta ama hoos wax weeyaan dhul hoose xagga sarena waa buur iyo guryo xagana waa buur iyo guryo marka bartan waa mid kamid ah meelaha aadka lagu jecel yahay magaalada Hargeysa aniga khaasatan meel aad iyo aad u jecelahay even hadaan waxba ahayn ama isla meel ka soo magaalada Hargeysa soo meermeerayso iska soo soco waa meelaha jecelahay aan iska soo marmaro okay aan ku noqonaa xaafada Aragsan Naxsan Quruxsan village already xaafadu way qurux badan tahay adigoon ogolaansho haysan gudaha ma geli kartid maanta marka wax ogolaansho haysan ma jirto inaan galno gudaha there's no permission okay xaafada horteeda waxa doonayaan dib badan lagu beero saayid muuqata Aragsan xaafada magac hableed baa bixiyay magac hableed oo Soomaali ah in magac dumar oo mise magac dumar mise magac hableed okay marka hagana waa xaqii wajahadi weeyaan wali waxyaabo yaraba waxa gudaha iyo dibadaba insha Allah mar baan gudaha gali doonaa laakiin wadada horumarta xaafadan ayaa si fiican loo sameeyay oo qurux badan waxaana xagaas waxa weeyaan biyaha ay filter gareynaysa waan maleynaa waxyaabo halka yaala waan maleynaa
marka wadada waa tan bartan wadada dhinaceega waxaa loo sameeyey meeshu waa dhagax aad bay u adagtahay meeshu marka haddii la qodo xitaa iyadoon la sabiraynin ayaaba biyo mareenka dhinaca la marin karaa oo dhulka adag dhulka qaybta yar hoose unbaa la sabireeyey laakiin marka la qoday si loo farsamaysan in badan way haynaysaa insha allah xaafadda marka dee waa intaa waxaa qodi kara xitaa dadka xaafadaha degan hadday isku tashadaan ay iskaalmeeyaan way samaysan karaan qoditaanka wadada isku sami karaan guryaha horumarta xaafadaha qaar baa waxay sameeyaan guryaha kan iska soo horjeedaan magaalada Hargeysa line dheer oo saas iska soo horjeeda line dheer oo san kale iska soo horjeeda marka dhexdooda waxaa marta wado ama space banaan oo ay wada leeyihiin ama ay shirgalayaan marka spaceka xaafadaha qaar baa waxay sameeyaan marmar ay iska dhigaan marmar waxa jira dhagaxa marmar wadani baa la dhahaa kaas dhigaan marka qurux asxaabta waxaan joognaa maanta galbeedka magaalada Hargeysa halkan qurux baa ka socota iyo horumar kaalintaasi waxa ku taala goolada Hargeysa bypass baa la dhahaa marka halkan markaan joognaa waa gooladii marka waxaan tusayaa halka marka loo kaco waxa weeyaan koonfurti weeyaan xagaas way banaan tahay marka waxa la doonayaa wadooyina barta la mariyo aadii soo dhaweeyo urta dusheeda wadadaasi waa wado kale oo 200 layna iyaduna inaad arkaysaan in kale mooyaan soo dhaweeyay horta marka wadadaasi magaalada ugu wareegaysaa saas ugu soo wareegaysaa xaga ay waxay maraysaa saas la wareejinaya masallaha isha gobkiisa u maraysaa marka waxa weeyaan wado muhiim ah waxay keenaysaa in magaalada dhanka ka dhismato ma sha Allah halka laftirkeega dhinaca kale aad bay magaalada uga dhismanaysaa insha Allah tabarakallah xagaasina waa tii ka imanaysay bariga xagana waa wadadii hore ee Jigjiga marka asxaabta channelka inta badan waxaan soo gelinaa si ogtihiin horumarka magaalada ka socda horumarka magaalada ka socda sida dhismayaasha iyo wadooyinka wixii horumar aan aragnay wanaagsan marka insha Allah asxaabtina channelka u sii share gareeya si ay u arkaan muuqaaladan iyo muuqaalo lamid ah laga yaabaa in waxyaabo kale oo faa'iido leh soo gelino insha Allah hadii Allah ilaaho asxaabta aad baan salaamaya. Assalamu alaykum.